بسم الله الرحمن الرحيم أنا إذن يري وحن إذن كو يري ومدى الصوماليين بان لها الليا وحا أنكاه الليا أنا وحوية مدحوينها صوماليا فرماتشو وحن ليه مدحوينه هلو دعيو حنا اللي يسكعفيه waxaan ku xijinayaa waxa ka socda Samareeb iyo waxa uu sameeynayo madaxweynuhu waa ninkii dastuurka ilaalinayay waxa loo haasameeyay ama madaxweynuhu ku yahay inuu dastuurka gacanta ku haysto markuu hadlayana qodobka uu ka hadlayo qodob مناسب oo meeshaas inuu yahay madaxweynaha isagoo waxba wadan buu iska wareegayaa meeshuu raba tagayaa wuxuu raba sameeyaa bal hadda waxaad ka soo qaadaan dadkii madaxweynayaasha loo doortay oo dawladaha laga doortay dawlad goboleedyada iyo gudoomiyihii gobolka Banaadir duqi gobolka Banaadir buu soo xambaaray oo isdhex fariisay ma sharcigu ma ogol yahay mase ma ogola waa su'aasha labaad waxa weeye waxa hadda saddexda nin meesha ku shiraysa dadkoodu ma dooran isaga doortay gacan ku rimis bay ahayn kan u yar baa 20 milyan uu ku bixiyay dadka Soomaaliya oo dhan waa ogyahay waxa ka sii daran waa la heshiiyay waxba lagu heshiiyay dawlad goboleedyadii iyo dawladii waa heshiiyeen xamar buu ku noqday xamar markuu ku noqday waa uu la hadlay wuxuu yiri saddexdiinu soo gala shir gaaray galeen waxa hadda ka socda ama uu kaga hadlay baarlamaanka waa wixii ay u ballameen saddexdood wixii uu isagu gacantiisa cid doorata ma jidha gacan ku rumisbay markii hore baa hayeen isaga ku keenay dad buu xirxiray dad baa lagu dilay dagaal ka dhacay saddex dawladoodba waa ogtay saddexda meeloodba wixii ka dhacay waxaasna waxa ka dambeeyay madaxweynaha waxa inta weheliya dani hadda waa hadlay waa uu ogaa nimankaas in dib loogu yeeray laakiin afkiisu ka dhowrsaday inuu yiraahdo nimankii madaxweynayaasha ah oo aan shalay la shirahayay baa mar labaad xamar looga yeeray waa ka xishooday laakiin waa ogaa hadalkiisana waa ku darsan karay ummadda Soomaaliyeedna badbaadadaadu gacantaada ku jidhaa daniyo gacanta kuma jidho ninka la yiraahdo farmaajo waa fashilmay si fool xun buu u fashilay nabadgelyadii buu ku fashilay sharciga buu ku fashilay wax walba waa ku fashilmay dhaqaalihii buu ku fashilmay wax Puntland maanta ay ku raaci kadhana ma aha dadka Puntland dhammaan way taageereen go'aamadii ka soo baxay madaxweynaha Puntland loomana kala harin siqir iyo kabiir qof la aamusan iyo qof ku hadlayba waa taageereen waxayna ku taageereen wixii xumaa oo meesha laga sameeyay oo uu ka qayb gelin oo uu diiday ka qayb galkooda iyo in lagu sawiro iyo inuu wax ku darsado midna waa gartay waxa tiri sharci ma aha gudoomiyaha gobolka Banaadir shirka inuu yimaado maxaa diiday maadaama sida loo soo madashii ka horeysay dani oo uu ka qayb ahaa madaxweynihii hore Puntland Cabduuli Gaas uu shirka ka qayb gelisay madaxweynuhu gudoomiyaha gobolka Banaadir gudoomiyaha gobolka Samareeb kama reebana wuxuu sanahayna ma aha gobolada dhan waa inay ka soo qayb galaan gudoomiyaashooda kan Garowe kan Gaalkacyo kan Boosaaso kan Samareeb kan Jowhar kulligood waa inay ka soo qayb galaan waayo wax nidaam oo jira oo wax kala xadadaya ma jiraan haddaan nidaam jirinna ismaal ma sheeyay waxa doonta sameeyay baa lagu yiri
saacadii la soo dhaafay waxa la hadalhayay wafti ka socda galmudug inay imaan doonaan Garowe oo ay u imaan doonaan sida xal loogu yeelaa shirka Soomareeb 3 arrimahaasi ma maqashoon tahay maxaa ku talin lahayd galmudug waa imaan ka dhaawaana dalkeedii dadkeedii waxa aniga hadda aan maleynayana maaha waxaas inay u imaanayaan galmudugna lama dhihi kare qorqor baa imaanaya la yiri qorqor ma imaanayo wuxuu ninkan la hor yimaadana saaxiibkiisa oo kulleega ay ahaayeen oo nabadgelyadu ka dhaxaysay oo xiriirku ka dhaxeeyay oo dhalashadu ka dhaxaysay wuxuu la hor yahay ma jiro waa ku khiyaanay miyuu dhahaya muxuu dhahaya muxuu la hor imaanaya adaan ku weydiin wahagaag waayahay markay waxaad aad u dhalishay siyaasadda madaxweyne Farmaajo waxaana sida loo ogsoon yahay uu ahaa madaxweynihii ugu taageerada badnaa oo Soomaali ay hesho ama Soomara maxaa isbedelay anigu waxaan joogay aadan cadda waa joogay madaxweynihii aadan cadde waa joogay cabdirashiid waa joogay maxamed siyaad waa joogay 6 madaxweyne oo Puntland isu bedeshay waa joogay weligii iyo allahay min baa gabaytiyo wuxuu ka xumaa xalimo hukuumadda weligii iyo allahay madaxweyne soo fikiraya maar maxaa ku tiri waxaan ku yiri madaxweyne aan qofka uu la hadlayo run u sheegay oo qofka uu ka taga iyo qofka u yimaada iyo qofka soo socda isku si ula hadlaya weligii maar nin baa ii sheekay wuxuu yiri aadan cabdillah nuuine ay saaxiib ahaayeen xildhibaan ah waxa la jooga laba nin oo midna gabaneed yahay midna inka madaxweynaha la socdayo lagu sawiro waxay ahaayeen maxamed waaberi iyo xuseen kulmiye 10,000 oo bajad oo martida loogu talagalay baa la siiyay madaxtooyada 10,000 baa 4 baxday 6 baa baxday 4 waa soo hadhay wuxuu yiri bajadka ku celiya lacagtaan ku celin mayna yiraahdeen annagu waa u baahanahay haddii adigu aad ka dhergsan tahay annagu waa baahanahay lacagteedana annagaa awal maamulayna haddana annagaa qaadanayna ninkii buu u sheegay wuxuu yiri ninkii goorta u yimi nin xildhibaan oo ah buu wuxuu yiri saasaa taalo nimankaanan isayna wuxuu yiri war madaxweynaha lacagta celiya ma diira ha celiya buu yiri amarka madaxweynaha raac waa diideen waa ku adkaysteen ma diidi karina way sadkeeyeen wuxuu yiri lacagtu 4,000 ma taha haddaa qaybsateen madaxweynaha idinku isku qayb heli maysaan laba uu qaadanaya madaxweynuhu idinkana hal baa qaadanaysaa 4,000 labadiina ana idin siinaya 4,000 ku celiya warqadiin keena aad ku shubteen markaa 2,000 ana idin siinay sidii bay yeeleen warqadii bay la shubeen iyagoo foojarkii watay yimaadeen 2,000 buu siiyey annagu madaxweynaha dad saasa baan arki jiray lana soo shaqeyn ma garata ma la dhihi karo qofkaan waa qof iyo xaqiiqda markii laga hadlo ma aha madaxweynuhu nin fiyo waxa tiri mustaqbalka Soomaaliya daniyo gacantaada ugu jira sidee ugu jira maana iri waxa tiri madaxweyne Farmaajo mustaqbalka Soomaaliya adaa madax ka abaan iri mustaqbalka Soomaaliya madaxweynuhu waa gudoomiya waxaana mustaqbalka uu qadanay waxa xunna waa ka baxaya waxa fiicanna waa ku gudoomiya markay maanta doorasho taagan waqtigu waa yar yahay haray sidee la yeelayaa badlo haddiina Farmaajona sida tilmaamayso aad dhaliilayso oo madaxweynihii doorashada rabay inuu hogaamiyo uu yahay oo masiirka ummadda iyo dalkuba uu gacantiisa ku jiray maxaa ku muuqda waxa ii muuqda waxa ku muuqda inaan waxba soconayn ba ii muuqata inta uu joogo marka waxaan ku talinayaa hor iyo abaata isaga laga takhaluso sidii looga takhalusi lahaa si kastaba ha noqoto impeachment lagu rido hal saaro baarlamaankii in muddo bay taageersan yihiin baa leeyahay ma soo oranayso
ما وصلناش waxaan umada rabina qof ku khasbi karaa ma jiro xilwaanadii Puntland laga doorto federal ka tirsanaa ma kula tahay dib u soo laabanayaan oo doorasho soo raadsanayaan waa soo doonayaan waayo iyagu wax doon weeye waxay xukumaan ma jiro codkooda ay xukumaan codkaasay baarlamaanka la wadaaga doorasho inay soo doontaan xaq bay u leeyihiin kuwa Puntland iyo kuwa kaleba laakiin iyagu magahay wixii shirgudoonka ah ninkii wax dadka kala hagayay farmaajo ah meel walba raadiyaasha xamar waxay leeyihiin garow laba qof baa ku dhimatay shoobara laga sameeyay banaanbax baa laga sameeyay idinka idaacadihii ma banaanbax baa ka jira garow boosaas ma banaanbax baa ka jira gaalka banaanbax baa ka jira dadka hadlahaya oo dhahaya Puntland baa lagu banaanbaxaya Puntland hal meel bay u tukanaysaa meeshay u tukanayaan waa meeshii madaxweynuhu u astay hal qof oo aan raali ka ahayna ma arag sidee markay israacaas ku dhacay oo dadku ay ugu waafaqeen madaxweyne Dani saashiis waxay u waafaqeen wixii xaq ah ku hadlay xaqana nin walba waa rabaa